horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacayga waa Deeqa Maxamed Muuse Xasan oo la magac baxday Deeqa Samtel. Maasha Allah, dareenkayga aad iyo aad buu u faraxsan yahay. Waana ku faraxsanahay abaalmarinta ay shirkadeeda iyo Dahabshiil Group ay guddoonsiiyeen, khaasatan Dahabshiil Group. Waxaa kaloo halkaan uga mahad celinayaa shacabkii iyo damqaday oo dhiirigeliyay ayagana sidoo kale oo social media ay soo geliyay oo in badan commentiyada iyo wuxuu dhan ku soo qortay oo laga soo fal celiyay lagana soo jawaabay. Maanta shacabkayga iyo TikTok oo Facebook kulli waa haysaan jawaabtii, waana taas waan idin soo guuleystay kulli dhammaan familkayga iyo reerahayga iyo shacabkayga kulli waa idin guuleystay. maantana waxaan idin wadaa Deeqa Samtel oo idin guuleystay waana ka waxay iga dhigan tahay dareen aan soo koobi karin, hadaf aan gaaray oo aan xaqiijiyay. Hayaan baan ahaa, waxaan u safrayay halkay rag badan gaareen baan islaha gaar, balse maanta waan gaaray, waana sii gaari doonaa, welina wax badan baa ii dhiman. waana ku faraxsanahay shaqadan aan helay, waana ka soo bixi doonaa, waana shaqayn doonaa. awalna waan ku haminayay, waana jeclaa shirkadayda, waana saasaana daacadaygeeda anoo suuqayga marmaraya ina videogaas iga soo galo magaalada. يعني محل ديجي تيك توك وصاقلو iyo Facebook social media dhan waana jeclahay shirkadayda, waana ka shaqaysanaya, waana ku faraxsanahay sida aan awalba u shaqaynayay si ka sii fiican iyo booska la magacaabay oo aan ka shaqaysanayo waana gudanaya. maadada labaad baa soo hartay. waxa iga keenay dareenkaas maamulkayga oo si fiican ii tababaray iyo supervisorkayga oo si fiican ii tababaray oo heerkaasna i soo gaarsiiyay iyo dadaalka igu soo bixiyay baa hadda iskale. waxaana dareenka iga keenay farxadda leh oo daacadda sida iyagu ii garab istaageen awalka horeba ay shaqada ii siiyeen oo ii shaqaalaysiiyeen oo anigan ugu qancay baa iga keenay. aad baan ugu faraxsanahay.